Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena quruxda caruurta. Waa wada janalkeeni. Markale koowaad waxaan idinka codsanayaa walaal inaad noo saartaan subscribe, like, share, comment. Wixii talo iyo tusaale waa dhankiina, wixii dhaliil iyo dhiirigelin waa dhankiina. Insha allahu tacaala qaybta commentiga noogu soo qora. Ha is dhiirigelin oo aan is wanaag aan isku farna. Maanta barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa qaybteeni koowaad quruxda caruurta janalkeena. Waa janalka waxaan ka garanaysaa magaca quruxda caruurta markii lagu leeyahay waa magac aad u qiimo badan. Awlaad Allah baxsho. Quruxda caruurta waa ubax indhaheena ku doogsado. Waa ogsoon Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta haysan Ilaahay ha siiyo. waa nimco Ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo nimcooyinka midda ugu wanaagsan. Inta haysatan Ilaahay waxa ugu baryayaa inuu awlaadooda baar ugu dhigo, diintooda, dadkooda, dalkooda anfaco. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa waxna tar lahaa inuu Ilaahay nooga dhigo. waa wixii dalka, waa wixii qalbiga insha allahu tacaala. Markaan taas kasoo tagno maanta waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeeni qaybtii koowaad janalkeena quruxda caruurta. waa inaa sidee loo helaa caruur qurux badan. Quruxda markaan ku leeyahay ma ahan quruxda wejiga iyo dhaldhalaalka kama hadlaayo. waa qurux waxaan ka hadlayaa awlaad oo bari wax dalka diinta wax tarto, dalka wax taro, dadka wax taro, adi wax ku tarto. Guri wanaagsan awlaad markay kasoo baxaan waa awlaad qurux badan, dhaqan ahaan, diin ahaan, bulshadooda, dadkooda, meel walba waa lagu wada garanayaa. Sidee loo hirgeliyaa marka? Sidee loo helaa? Sidee loo heli karaa caruur saas wanaagsan oo bari wax taraan? Marka wax ku taraan oo dalka wax taraan oo diinta wax taraan oo dadka wax taraan iyo islaamka wax taraan. Okay, marka koowaad waa in aad aas-aaska qoyska hoos kasoo dhistaa. Wax walba waa ognahay inuu kasoo wada bilaabo aas-aas. waxa aas-aas lahayn inaysan soconaynin. Guri markii la dhisayo si oo jiridiisu u istaago, quwad u noqdo, guri qadiim u noqdo, maxay ahayd bulshada wax ku taro, maxaa la dhahaye oo dhaxal u noqdo. Marka koowaad aas-aaska laga soo adkeeyaa oo bari lagu diirsanayo oo la hirgalayo. Marka waa ogtihiin. Marka saas oo kale wax walba aas-aas u baahan yihiin. Marka ku ilaawo insha allahu tacaala Ilaahay intuu naga garad siiyo inii soo gudbinaya. Idinkana waxaa idinka codsanaya inta dhiman inaad soo dhamaystirtaan, wixii iga qaldan inaad iga saxdaan. Marka hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. Sidee loo helaa? Waa inay horta marka koowaad gabadha islaamka ah waa inay ku doortaa ilmaheeda aabbo wanaagsan. Waa inay u doortaa aabbo diintiisa, dhaqankiisa, dabeecadiisa, dadnimadiisa, shaqadiisa, wax walba inay ka fiirsataa. Okay, markay taas noqoto dhinaca gabadha, dhinaca aabahana sidoo kale laga rabo inuu hooyo wanaagsan u dooro. Bari ilmihiisa iyo inuu u dooro diin laho, iimaan laho, xishooto, dhaqan laho wanaagsan inuu u dooro. Marka kadib ayaa la heli karaa awlaad Allah baxsho, awlaad qurux badan. Marka qof kastana waajibka Ilaahay subxaanahu wa saaro waa inuu kasoo baxaa. Gabadha waa ninkeeda inay adeecdaa, ninka waa inuu naagtiisa ka dambeeyo, isku kalsoonaadaan, jacayl isku muujiyaan, is saacideeyaan mar walbo. Gabadha waa inay ka fikirtaa ninkeeda, ninkana inuu ka fikirayo xaaskiisa. Awlaadna Allah baxsho. Hadduu awlaad maatan meeshaas kasoo baxay awlaad qurux badan oo bari wax taro. Guri walbo qofka kasoo baxaa la garanayo. Guri xun hadaa kasoo baxdid iyo maxaa la dhahaye qaabkiisa iyo dhaqankiisa si kala ah waxaa ka garanaysaa ilmaha iyo awlaada. Haddii guri wanaagsan aad kasoo baxdidne kolleytaba guri wanaagsan qofka kasoo baxo ma qarsamo. Markii Ilaahay subxaanahu wa tacaala guriyeena hanoo wanaajiyo, guriyihii lagu tasha lahaa, lagu daya lahaa, Ilaahay hanooga dhigo insha allahu tacaala. Wixii talo iyo tusaalaha hoos noogu soo qora. Hakoo intaasaa ka dhahayna insha allahu tacaala. Janaalka waa iska cusub yaa noo dulqaata. barnaamijyo kale waa idiin soo wadnaa oo aad u qurux badan. Wixii markaas isleeyahay bulshadaada waa ugu faa'iideyn kartaa inaan ugu faa'iideeyo insha allahu tacaala. garab waa isa siino.
gabdhaha walaaleen cusub hala soo dhaweeyo anaka isa soo dhaweyn anaka baa cusubnahay laagta hala saaro subscribe share comment wixii tale iyo tusaale ah insha Allah tacaala waxaa idinkaga tagaya